السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto dal iyo dibadba. Waxaan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib halkan waxaan tacsiid tiiraayal uga dirayaa shacbiga ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka City lagu hasuuqay loo kala aabayeelin intii dhimatay. Waxaan leeyahay Allah u naxariista Soomaali dhammaanteedna samir iyo iibaan Allah naga siiya. Inta dhaawacana Allah u boogadhaya. Intaa kadib waxaan la hadlayaa hadalkayga oo saddex qaybood ah. Qaybta ugu horeysa waxaan la hadlayaa ummadda Soomaaliyeed ee gobolka City. Waxaan leeyahay yar iyo weynba gaar ahaan beesha Ciise waxaa la yidhi nimaan tashan waa loo taliyaa. Dad qiimo laad ahaydeen, dad sharaf laad ahaydeen, dad dadnimo laad ahaydeen, dad midig laad ahaydeen, dad mala laad ahaydeen, laakiin maanta intii midna nigama muuqdo. Canfarna waa lagu guurayaa. dalka Etoobiyana ninka sibaxniyihiisu ku joogaa dawlad inay ka jirin waad ogtihiin. Daraarta aad waxa la yidhi tashan waayo waa loo taliyaaye daraarta aad Soomaali baan nahay aad dhahdeen kilalka Soomaalida nigu daray ayuu amxaar waxaasoo dhan ka fikiray. Haddii aad u arkaysiin inay ku koobnaanayso gobolka City way dhaafsantahay arrintani. واتو كشقي أبي أحمد إيه سايف أسفرقه الله صعدو ديجان كصومالي دا جارهان قبل كأكونوا لي هاي دلك عيسى الله يراهي هذي جبوتي تهاي هذي توبيا تهاي سيدي ماشي اللوجة ساري لها أي دولة دا إثيوبيا أنا وحى كتم بيسواد أكتهين وحدتك الله لا عيو hubkii Itoobiya oo dhan baa gacanta laga geliyay Canfar Ciise kama awood badno kama raganimo badno kama ciidan badno dhul Ciise leeyahayna Canfar baa qaadatay. waa maalintii taariikhda da'baymaha dhan ee aan kow aan maanta malqayo. waxa weeyeen tala waa marad garan weydo iyo marad gaari weydo. ka Jabuuti jooga isaga gaar baan ula hadlaa. hadda waxaan la hadlayaa waa Ciisaha ku nool gobolka City. maanta labada lugood iyo labada gacmood baad ka jaban tahay, laakiin dhabarku hadduu kaa jabo ma kabantid. lugaha waa la kamaa, gacmahana waa la kamaa. waxaan ogsoonahay dadka kasta oo Soomaaliyeed meel kasta uu ku nool yahay waxa uu ku nool yahay uu ku joogo waxniyihiisa. Soomaali dad ay dadka Afrika jooga ku dhiirita ma aha. dadka Ciisana waa rag hubkii laga dhigay oo qoriga AK la yiraaha qori ka weyn aan loo ogolayn. waxay ku tusaysaa tahay tusaale Canfarna qorigii u dambeeyay dawladii ay ku dagaalamaysa cundufi iyo cadayti iyo garmaytu lala dhacayaa oo arkaysan. ahaan samaysa sida ay Canfari moodayso. dadka inta aan Canfar aqoonin dadkani dad diin la maaha, dad dadnimo la maaha, dad islaan maaha. ninkii islaan moodaya qaar Allah baan malqayay dadkaay waa islaan waaye. islaan dilay weeyle aqoon baan u leeyahay aniga ninkaan aqoon u lahayno wax yar al tusaale. diinta islaamka meel ay kaga taalo ma ii sheegi kartiin naag la qabo oo laba nin nagu qabo, midna uu mareytahayga yahay midna odagayga uu yahay. gabadhu markay gabadha tahay ay inanta tahay inta uu nin u imanaya oo la sheekaysanaya wuxuu leeyahay anigu guurka ma rabo, laakiin waxaan ka rabaa mareytahaaga. mareyta macnaheedu waxa waaye waa anigu kolkii lagu guursado inaad qof kale iga siin mareytahaaga oo ninkaaga labaad noqdo. carabkayga been kama sheegayo.
haddaad su-aashidna cafar caaday ku leeyihin cafar caada macnaheegu waa dhaqanka yaga wey walaalayaal dad noocaasi islaan maaha nin naagtiisii qaawantahay siday ku dhalatay tahay salaadna tukanaya qur-aanna akrinaya diinta islaamka halkay kaga taallaa waa dad ilaahay uun og yahay wixii ay yihiin waa dad xumaantooda aad arkaysiin ilmo caloosha ku jira naag uurna ninka kala dooxay caloosha intuu ka dooxay ilmihii ku hor gowracay ma diintuu haysta ii sheega dadkii birimageydeed ahaa bay laynayaan saddexda waddan ee ay ku kala nool yihiin jabuuti etoobiya aliteria saddexdaba way iskaga yimaadeen waana dad lagu guurayo waa hangoolkii geedka lagaga daadsanayay dheemaalka waaye sidii dhulka loogu xoreynaysan lahaa etoobiyana ay bad u heli lahayd ay jabuutina ugu qabsan lahaayeen fikraddu intaas waaye ninkii moog in ogeyn in badan oo iga aqli badan baa jira in badan oo waxu muuqdaan baa jira in badan oo dadnimanaa jira war maanta maalintii ciise uu isku eegayay cadow ma aha maanta waa city waa la soo dhaafi ay shici iyo maxaan ku dhaha bullaxaar baa la iman dagaalka cityna waxa ku xiga bisha sanadka maanta aan joogno intuuna dhammaan haddii dalka jabuuti la yidhaaho dagaal ka dhici waayo dhagaha layga duro aniga mashcaradda ka dhacaysa jabuuti waad ogtihiin waa dad isku xidhan waayo 15 sannadood handhaho dalka jabuuti la yidhaahna canfar buu ismaaciil ku wareejiyey siduu soomaali uga cararay waxaan la hadlayaa ogaaska iyo beesha ciise ee ku dhaqan dalka etoobiya ogaas mustafe miyuuna taariikhda ogaaska oo waxba ka oqoonin anu waxaan la yaabanahay ogaaskayga waxa ku dhacay manni sida aadan faarax kursiga ilaalsanaya war annagaa ku dooranood ogaas noo tahay ee etoobiya kuma dooran dharaartii maanta oo kala ahayd ee dowladda etoobiya dalka inay ciise ka rarta ay ku tala gashay 77kii ogaas xasan jannadii allah ka waraabiyo ee dowladda etoobiya ay iskugu timiday wuxuu yidhi dadka dhulka ka rar bay tidhi etoobiya halkeen geeya ay shaco weydaari waan inii geynayaaye wixii ayna yidhaahin ma ku qanacdiin haa noo gee baa layidhi geeta ninka la ydhaa oo jaranaal ahaa ayaa magaalada casbuli la ydhaa ee hadda taariikhdeeda aan ku hayno halkaasaa loogu keenay amxaar oo dhan iskugu yimiday ciisano markaa uu isku wala yimiday waxa la yidhi dhulka kogaaskii oo la socdo yidhi war dowladda etoobiya waa tan dalkana ka guur baa lagu leeyahay ay shaco weydaaraana lagu leeyahay anigana dabadaa layga wadaa dee soo guur buu yidhi ciiso raggii ciise markaa halkaa joogay ee dadnimada lahaa waxay ku jawaabeen sacan la hadal amxaarow sacan la hadal baa layidhi annagu kula hadli mayne dalka annagaa leh ilaahay baa nagu dhaqay igama lihid diyaaradaa lagu rushay iska daa wax kale dagaalkii berigaa ka dhacay canfar iyo sidaa maanta oo kale canfar iyo amxaar intay isku soo raaceen ciisaha abaar sidan ana way taallay dixihii baa loo fadhaystay xoolihii wixii canfari ay qaadan kari weydamaan wixii kalena geeta ninka la yidhaha baas mariyo leynay taariikhda waad haysaa ogaas mustafow maxaa ku aamusiiyey maxaa afkaaga xanje ku dhajiyey miyaad ogaaskii beesha ciise ahayn dagaalna kuma lihin amar bixi iskugu yeedh ciisaha war dufaacda dalkiinna maanta haddaad ciisaw dalkaaga dufaacan weydid wallaahi waad gumoobi oo bilaahi waad gumoobi tala waa maraad garan weydid ee maraad gaari weydid gaari maysid maanta safarahaagay ku jirtaa tasha ciisow isku gurmo weligay ma maqal aan ciise aan isku gurman adigiiba dagaal ma gelaysid adigii iskuma gurmanaysid soomaaliya ii soo gurmaad leedahay soomaali aaway soomaali goormaa loo fikiray soomaali goormay burburtay soomaali goormay iyadu dhexdeeda la isku jeedshay iyadaa isku dhikila weyn soomaali cadowgeyga ma aragto
mustafa cagjar waxa quran ka codsanayni waxa waaye inaad dadkaas meesha lagu laynayo ee lagu dilayo kulli adoo amxaar baa tooci de Soomaali kuma dooranay dhiig Soomaaliyeed ma lihid kolka horeba amxaar baa ku keenay dadka waxna u qaban maysid adaana dilay markii cabdi ilay uu joogay cafar la hoos geeyay way noolaayeen maanta sama noolo waxaan ka codsanaynaa ay qura waxa way wixii aad ku taawkulayn kartid iyaga isdufaacaye hub ma haystaan ma taakulayn kartaa waa taariikhda qori doontii ciise maal waad haysataa cudud waad haysataa war dufaaca dalkaaga Soomaali wixii garab aad uga baahan tahay markaa weydiiso af engiga hal soo taagnaan adigiiba dagaal ma galaysid adigiiba iskuma tiirsanid adigi iskuma gurmanaysid Soomaalidaad u baaqaysid halkay ku soo maraysaa ninkiisu dilay gurmad male afarta wiil ee maanta galbeed joogtaa yaad ciise ku tahay kuwiina hadii la soo jabiyay deyrkii Barlin way hadii la soo jabiyay wallahi bulaxaar baa lagu iman hadii bulaxaar lagu iman waayo taariikhdeeda yaa la qori waxaan ku sheegayaa ciise tasho ka fadhiga afar dhexday adkaysatay ka Djibouti jooga ka Alateriya jooga ka Toobiya jooga naagtu biyahay daba si daawad aragteen meeshii la qabsadaba naagihii iyo ubadkii reeraa la dejinaa dad tashaday iyo dad aan tashin xagee wax kaaga dhaceen wanka weyn ilaa la gowraca indhihiisu cirka ma arkaan ciise marka bulaxaar la keeno malaha abaraarugi doona gaari maysid markaan dalkan amxaar iyo afar baa amxaar qabsan doona ciise Toobiya taasan kale ahay ka fadhigaan leeyahay hubna waad heli murugna waad haysataa isku gurmo dalkaagana difaac baan leeyahay Soomaalida walaaliheen ee kalena waxaan leeyahay walaalayaal de Djibouti iyo kuma ekaanaya gobolka City dagaalka Sacuudiye waa Soomaali waa tirtir waay waxaan dhageystay ninka la yiraahdo jarnaalka ciidanada Itoobiya General Jula baa la yiraahdaa umaleynaa markii dagaalka Tigreeg iyo Itoobiya imika uu socday ciidano u soo xiray tababarka uu ku jira Facebook ninkii doonayba waa arki karaa ciidanadii tababarka uu soo xirayay wuxuu ka dhahay dhalinyar sidii naas oo tababar sida loogu soo xiraa quwadii Soomaaliya ee 77kii dalkeena ku soo duushay kuwaas oo tiknikada ay wataan diyaaradaha ay wataan quwadda ay wataan inagoo kala jabiyo wooyaaluhuna marka Soomaaliya la jiruudi Soomaali iyo wooyaalana waa inay simide meeshaad ku aragtiin ku dilabuu taariikhda u fiirsada dadka tababarka caynka lagu siinayo ciidanadiisi iyo dadkiisi miyaad rajo ka sugaysaa Soomaaliya muruqaaga ku joogtaa meel kasta nin kasta Toobiya muruqiisu ku jooga ciise maxaa ku dhacay ninkaasi new police buu leeyahay maleeshiya beeleed buu leeyahay isaga isdufaaca maxaa kugu dhacay adiga beesha ciise la dhaho maxaa ku dhacay ilaahu talada naga qaadi waxa la yiri ninku moorada haduu ka caydhoobo uu dhaqdaa laakiin malaha haduu ka caydhoobo ma dhaqdaa leeyahay ciise uu malaad ka caydhooday ogaas mustafa uu fadhiga kakka waa taariikhda qori doonta ogaaskaygi baa tahay waan ku jecel lahay codkaagaan malqaynaa hadalkaagaan malqaynaa ku dhawaaq inuu dadkaaga iyo dalkaaga aad difaacdid oo istiraahid waris difaaca inta ma ka heli karnaa anaga furunta noogal kuma liya malankaaga baahannahay madaxweynahaygii baa tahay ogaaskaygi baa tahay kii aan taladiisa qaadanaynaa tahay afkaaga maxaa xanji ku dhajiyay waan ognahay barashadka ku saaran ee Ismaaciil iyo Abi ka haysta maanta oo kala ma hadee maalintii xanjada afka aad ku haysanaysay ka fur afka gacanta hadal kolkaad shalay joogtay magaalada Bariweyn la yiraahdo shalay markaad joogtay Casbuli wixii indhahaaga aad ku soo aragtay miyaad aamusi kartaa maxaa damiirka ka qaaday dadka caynka u egay gubtay nolosha ku gubtay miyaad daawan kartaa ee dalkoogii iyo dadkoogii laga soo barbixay wala agoomaha ee caga asta ee cagaaga ku socda
تا intaasaan kale ahay baaqaygu wuxuu ku xiga ee labaad waa Jabuuti way waxaan la hadlayaa Sakariya Sheekh Ibrahim waxaan la hadlayaa Maxamed Jaamac ciidanka Jabuuti maanta sida aan warka ku hayo boqolkiiba 80 waa canfar way ma loo daahayaa ma dalka Jabuuti leeyahay markaa dagaalka cadaytu iyo garbaciisa iyo ku xigay waa Jabuuti way sanadka intuu dhamaan Jabuuti haduu dagaal ka dhici waayo ta afkayga beenan ka sheegay haduu ugu dheeraado sanadka soo socda bilaha u horeeyo way waxan waa plan way dagi adna war ma haysid ciisa Jabuuti jooga ee labada nin magac dhabay ay u weyn yihiin Ismaaciil waa wan dhintay oo aqal ku xiran 15 sanadood buu dalka wareejiyo canfar ku wareejiyay Soomaali sidoo uga carari boqolkiiba 80 meesha ciidanka Jabuuti canfar yahay Soomaali uma daahayso qorina haysta maantay gacantiina ku jirtaa ka kaca fadhiga waxaad ciisaha ka dhacdeen waxaad Soomaalida ka dhacdeen aqalada quruxda badan ee Haramuus ka dhisateen ilaahu fadhin maysiin sida maanta loogu urdooxayo caloosha looga jeexayo ilmaha cadayti iyo cundhufi iyo garbaciisa lagu urdooxay saasa lagu urdoox maantay gacantiina inagana ku jirtaa ka kaca fadhiga inta saldhigyada ciidanada niga qabsan inigu gacanta ku dhigto ka tashada waa la tashaday ilaahay nilina ma dhinto Ethiopia iyo Eritrea iyo canfar intuba way nii heshiiyeen deegaankan Soomaali baa degi jirta in la oran doona umaleyn hadii laga tashan waayo walaalayaal hadii aan dhinac kale u dhigo shacbiga Jamhuuriyadda Jabuuti maalintii cadayti iyo maxaan ku ramaa maalintii cunfi iyo meesha dan la helay la qabsaday mashcarada ka dhacaysa arxima tajorra ubukh ee calankii Ethiopia ay canfartu ku haystay laga dhaxtaagay Jabuuti maxay ku tusaysaa tusaalahay muxuu bixinaa ma la ii sheegi karaa iya moog inay canfar heshiisay ay wax mid tahay iya moog maanta walaalayaal dadka Jamhuuriyadda Jabuuti ku nool rag iyo dumar waxaan baaq u dirayaa ee Soomaaliyeed kala qaadi maayo Jabuuti ku nool ka kaca fadhiga kii fadhiyo ka kaca fadhiga kii sare joogo fadhiga hadaad wax hub kala weydiin bahalkii safety ariga lagu qalayay soo wala iibsada war isdifaaca ilmihiina difaaca naftiina difaaca waa Jabuuti waxaan la hadlay waxa ciidanada ku jira war naftiina iyo dalkiina iyo dadkiina siday canfari qoriga isku siinayso ay isku difaacayso ay u tashatay ay maanta weerar ugu tahay Soomaali halku Allah wax kaaga ridi adig Maxamed Jaamac ninka la dhaabaan la hadlaya qof kale oo nool ma arkay dalkaas maanta dalku gacantaada ku jira ay qabo maanta dalka gacantaada ku jira ay qabo saldhigyada hubku yaallo nin canfar ayaa lagu arkin dibaabadaha ayaan lagu arkin ataleeriga ayaan lagu arkin waa wallahi oo billahi oo tallahi inaanad Haramuus ku noolaanayn sida ilmaha cundhufa caloosha hooyadii looga soo jeexa ina ilmahaaga loo gowracayo diyaarad aad raacdi waxba ku tari mayso qaxooti waxba ku tari maayo qurbo waxba ku tari maayo dalkaaga wax ku tahay dalkaaga sharaf ku leedahay oo magac ku leedahay oo xidigaa ku sidataa maantay gacantiina ku jirtaa ciisow ka kac Soomaaliya ka kac Samaroonow kac Isaaqow kac war hayaan iskala qaadin Soomaali baan nahay ma kala maaran shacbiga Jamhuuriyadda Jabuuti maanta dalkiisa hadii laga qaato Hargeysa ku qixi warintan kugu soo qixin ii gurmo ii gargaar tala isii la hadal madaxda Jabuuti joogto ina dalka lagu soo socdo dadkaasi waa dad la baabay baan u maleynaya dad sixran waay
wax indhahoogu ay arkayaan berri markay gacanta ka baxdo iyay ka hadlayaan baan u malaynaa. waxaan arkayay maalin dhaweyte dad isku bulaha bulshada isku xaganaya oo magaca ciisaha sheeganaya. war maanta maalintii la isxaganayay maaha. war maanta maalintii la isqoloqolaynayay maaha. war maantu dalkeenni iyo dadkeennu gurmad nooga baahan yihiin dibad haddaan joogno iyo gudaha haddaan joognaba. waa la tashadee ma tashanaa. gaari maynee ma gaadhnaa maanta. soomaaliya ma hadalkaygaa meel ku qora. ilaahu maantay dhowdahay. ilaahu berri gaari mayno. maanta waxaan ooyeynaa waa caddaytu cundhufo dan la helay garbaciisaan u ooyeynaa. waa 7 magaalo u malaynaya wax meesha la qabsaday hadda. ninkii canfareeda madaxweynaha ka ahaa kilalka canfarta muxuu yidhi? daan hadalkiisii nigu soo celiyo. dharaartii la xasuuqay jimcihii naga tegay gobollada soomaalida ee ciisuhu dega la soo qabsaday wuxuu yidhi weli guuli ma gaadhin. labadii caasimadood baa noo dhiman buudi. bal hadalkaa u fiirsada. jabuuti iyo diridhaba maba qarsanayaba. wax cad waaye waxa lagu sheegay. war cad oo baa lagu sheegaa. waana dhegaysateen meel kastuu ku jira. shacbiga jabuuti oo ka kac fadhiga. shacbiga Itoobiya oo ka kac fadhiga. maanta maalla waad haysatiin muruqna waad haysatiin. nin mareyta ku dhashay oo hangool laga dhiganaya inuu maanta kuu quuri waayo mawdkoogii waa kan. ninka tirtirfanaya ee mawdka baktigoogii waa kan oo way qaadan waayeen buuri. waxa aan ka seexan waaye kelmaddaas waaye. baktigoogii aakan oo Soomaalidu way qaadan weydu. walaalayaal war mawdkoogii bay qaadan waayeen buu dhihi waay. baktigoogii way ka tageen buuri. ilaah baa inagu dhaariyay damiirkii aaw dadnimadii aawe. waxaan hadalkayga ku soo gabagabaynayaa soomaalida ciisaha qurbaha jooga. gobolkaa doontaba joog. meeshaa doontaba ku noolow. maanta gurmad baa lagaaga baahan yahay. dhiig joojin baa lagaaga baahan yahay. hadal baa lagaaga baahan yahay. fadhi ku dirir looma baahno. in la isqanjiiriyaa loo baahan yahay. rag iyo dumar dhexda la adkaysto. garbihii Soomaaliyeed aaway. garbihii ciise aaway. garbihii dhiirana aaway. colnaagii wado ma jaba hore baa loo yidhi. maxaa aamusiiyey? halyeeyadii Soomaaliyeed ee garbihii Soomaaliyeed ee xaawataa ka oo miidhanaha aaway. walaalayaal garbaha Soomaaliyeed gaar iyaga waxaan ku salaamayaa. qiimaad leedihiin. madaxaad noo saaran tihiin. hadalkiinaa wax tara. ficilkiinaa wax tara. rag ma jiro. rag ma jira sidaan u arkaya. dalkiina innigaa u gurman kara. ka dalka gudihiisa jooga innigaa dadka kicin kara. innigaa dhiirin gelin kara. markaas buu dadku karaabada ka soo dareerayaa baan u malaynayaa. hadda rag hadlaya ma arkaysiin. wax hoos u foorana maahina wax kale ma arkaysiin. walaalayaal yaana gumoomin. intayna la kusbaday dhimatay ee maanta dhimatay ee la kusbaday taariikhda kuma dhicin. garba Soomaaliyeed bay canfari kusbanaysaa horta. aniga kumana seexan kumana soo sara kicin. laakiin maanta way dhacday. maxay u dhacday lama yidhaahee maxaa lagaga hortagayaa? intaana kuma joogsanayso. dadkii birimageydeeda ahaa laynaya 100 jir bay dileen oo sariirta lagaga tegay caddayti. 100 jir bay dileen cundhufo lagaga tegay oo sariirta saa u yaalla. waxa la ii soo diray haddaan inii soo diro calooshayna xanuunsanaysa. walaalayaal hadalkayga waxaan ku soo gabagabaynayaa. ilaahu tawfiiqdana waafaji. ilaahu tawfiiqdana waafaji. ilaahu karaamadii ciisuhu laa u soo celi. ilaahu karaamadii ciisuhu laa u soo celi. walaalayaal dadka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in la isku gurmado. annagaa isku dhikala buurane Soomaaliyeed. maanta haddii dayrkaa la soo jebiyo xamar baa la tagaa. waad u jeediin maanta dalkii Soomaaliya dalka farmaajo ninka la yidhaah markuu ka baxay waxa la wixii 5 maamul goboleed joogay Abiy Ahmed uu u yeedho gacantu ku dhigay. u fiirsada. waa sheekadii ninkii garba maxaa loo jiray xamar dhex fadhin jiray
قرمة ما الله هاي تجريجها شكدي سبيق صار نقطي شنتي مامل قبلين بو يروح أنا شفت قراع يا ولي حسن شيخ أنا كرباش هي إنه كلا يو طلع دقاطة قال إنك وحلو قصور دي بيار تصاب عنده في عدايتنا والله سوق بسدير نباكو حكته جبوتي باكو حكته برينا واهر جيسا والله أنا عيدا هاي سيني الصومالية وحقولا كاعد سنة وحان أباهانا ما تعون قبطين باي هاي ستا تكو سارن باي سارن dadka 6 degal cuna qabataynta saaran wixii aad ku taraysid waa hub waay hub baan u baahanay aniga afar la iima sheego ciisiya anfar way is yaqaaniin laakiin waad arkaysaa dadka tiknikada lagu garaacayo nin AK-sit muxuu ka gaarayaa meel 100 kilomitir laga soo garaacayo tiknikada ciidanadii Itoobiya dargigana baabuurtoodu waa kuwa daba taagan arkaysiin walaal dalkeena haridan Soomaaliyeed walaalayaal dadkeena haridano madaxda Soomaaliyeed waa inay la hadlaan madaxda Soomaaliyeed ee kilalka Djibouti ilaa Dirdaba ku nool hadal baan u baahannahay ficil baan u baahannahay talaan u baahannahay gurmad baan u baahannahay ficil baan u baahannahay Soomaali hadaan nahay armaatu dalku farahayna ku jira Soomaaliyeed argaar ahaan ciisow maantu dalku farahaaga ku jira farahaaga ka bixin ka Djibouti joogo fadhiga ka kac كتوبيا جوجو فردقة ككع هاي سقولو قليل مالتي قلادة ماها مالتي نجعليسيقا ماها مالتي قبيل نعيسيقا ماها ولا ليال وحن نقول سلام يا سلامة إسلامك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.